بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. إلهي baa mahad iskale tabaaraka watacaala xilli walba iyo xaalad walbaba isagaan weydiisanaynaa towfiiqda iyo inuu khaatimada inoo hagaajiyo. maanta taariikhdu waa 14 bisha Rabiicul Thaani ama bisha afraad 1446 oo waafaqsan 17 bisha Oktoobar 2024. waxaan jeclaystay in aan kelimo yar ka idhaahdo hadal aan xilli hore idhi oo waayahan maalmahan dambe aada la isu dhex wado oo siyaabo khaldan iyo siyaabo kala gedisan looga falceliyey ayaan jeclaa insha allahu tacaala inaan baraarujiyo wax ka idhaahdo. waa min baab inahaa safiya, nabigu siduu yihi sal alla alay wasalam, oo dadku markay ay wax arkaan ama wax dhageystaan falcelinteedu ay ka falcelinayaan marar fara badan waxay ku xambaaraysaa qaar fara badan inay dambaabaan oo ay khaldamaan oo ay si aan munaasib ahayn ay u aakhira seegaan, qaarna way u qastaan. walaalo badan oo akhyaarana way isoo weydiiyeen arrintaa iyada. waxaan jeclaystay markaa inaan arrintaasi aan bixiyo muxuu ahaa ishkaalkeeda. hadalkaasi wuxuu ahaa waa hadalka ku saabsan madaxweyne Siciid Deni iyo madaxweyne Axmed Madoobe oo ku saabsan kelimo waana oon hadda ka hor u jeediyey oo hadda dib loo soo cusbooneysiiyey oo aada la isu dhex wado lagana dhigay inay hadda aan idhi ama munaasabadan hadda taagan inaan ka idhi loo ekeysiiyey ayaan jeclahay inaan baraarujiyo. hadalkaasi wuxuu ahaa dhowr sano ka hor buu ahaa. markaana waxaa dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. xasan iyo raggan hadda muxuu ahaan magacaabay na mucaarad bay ahaayeen xilliga hadalka aan idhi munaasabadan ku idhi. waxayna ahayd xilligii magaalada Muqdisho gudaheeda ay ka dhaceen isku dhacyadu ka dhaceen oo xasan sheekh iyo Shariif Axmed iyo group mucaarad ahaa oo hogaaminaya markaa gole ay ku magacaabeen badbaado qaran baan u malayn u ahaa magacaas. magaalada Muqdishona dhowr goor isku dhacyo ka dhaceen oo magaaladii inay yani khatar gashay, gilgilatay, halis ay ahayd, isku dhacyo iyo dagaal iyo olo qabiil iyo wax saas oo kale ka socday. munaasabadan hadalka ku beegay horta kaasoo ahaa. hadalkana waxaan u dhigay dhinacyihii oo dhan baan la hadlahayay. waxaan jeclahay 3 fariimood. diintu waa naseexo. 3 fariimood inaan u diro 3 jiho oo hawshaasi khusayso. jiho waa qolada kuraasta ku fadhida, jihana waa qolada doonaysa inay ka kacsadaan, jihana waa shacabka miskiinka ee masaalixdiisa lagu ciyaarayo. khudbad jumco ahaa qaybtiisa hore waxaan kula hadlay Farmaajo oo markaa madaxweyne ahaa iyo groupkiisii. waxaan u sheegay mas-uuliyadda ka saaran dhibaatada ka imaan karta wax hadda ka jira waddanka jira. qolada kursiga ku fadhida waxaan leeyahay haddii 1000 sano bal kumanaan sano lagu daayo, nolosha lagu daayo, kursigaana lagu daayo faraha lagaaga qaado, waxaa xaqiiqa inay imaan doonto maalin aad ka tegi doonto ama isagu kaa tegi doono. maalinkaana mas-uuliyaddiisii iyo tabiicaadkiisii ilaahay hortiisay kuu taallaa, way kaa horraysaa. waxaan kelimada labaad kaga hadlay ama qeybta labaad qoladan mucaaradka ahayd ee xasan uu hogaaminayay
iyaan iyagana la hadlay oo markaasi rabshadaha waddanka ka dhacaya iyo dhibaatada ka timaaday mas-uuliyadda ay ku leeyihiin ilaahay hortiisa ayaan kaga hadlay. fariinta labaadii waxaan doonayaa inaan u diro kooxdan isku magacowday murashaxiinta madaxnimada ee doonaya inay kursiga ka riixdaan ninkaas ayaguna ku fadhiistaan. fariinta koowaad aan u diraya waxay tahay waad ogtihiina waxaan idin xusuusinayaa kursigan iyo boqortooyada ilaahay baa gacanta ku haya cidduu doonuuna siiyaa. qul illaahumma maalika almulki tu'ti almulka man tashaa'u watanzicu almulka miman tashaa. dagaal iyo dadaal loo galayna laasim maaha in kursigaa lagu gaadho. midaan dadaalin buu ilaahay siiyaa. mid dadaalay oo dagaalamayna ilaahay waa ka qadiyaa. ilaahay baa hayoo gacantiisa ku jiroo bixiyee bal horta rumeeya. labada qaybood markaan la hadlay ayaan haddana mar dambe yaan kelimo waxaan u jeediyey ninka la yidhaahdo Saciid Deni iyo Axmed Madoobe oo iyagana markaasi aan kala hadlayay hadalkan hadda dib loo soo celiyey aan kula hadlay oo markaasi aan kala hadlayay waajibka ka saaran waddanka iyo badbaadintiisa iyo in hadda aan looga sii darin xaaladda taagan oo wixii laysu ururin karo iyo kolba sidii muxuu ahaay laysu fahmi karo in laysu fahmo laysu tanaasulo ayaan kala hadlayay. tanaasula oo maslaxada ummadda ilaaliya oo shuruudahan faraha badani waa wax laga gudbi kara iyo wax la isla meel dhigi karee shuruudahan caqabadaha ka gudba oo mindi ku taag. dalna ma koriso, dadna ma koriso, ummadna wax ma tarto, horumarna ma keento. nin baan is aragsannahayna haba yaraatee wax ma soo kordhiso. tanaasula oo ummaddu inay is aragto kulanto oo wada tashato oo natiijo gaadho oo nidaam wada dhisato horay u socoto qayb ka noqda. kelimadaasi munaasabadaasay lahayd, halkaasay ahayd, saasna way isugu xidhnayd oo waxay ahayd kelimaad aan dhinacyaha markaa kula wada hadlayay ay ahayd. ma ahayn kelima hadda munaasabadan aan ka sheegay ama aan ka hadlay. waayahan kamaana hadlin arrimaha Soomaaliya ka taagan ma ana ka hadlin. arrintaasi marka in sidaa loo fahmo ayay u baahan tahay oo haddii hadalka inta la soo gooyo munaasabadiisii iyo waqtigiisii la yidhi laga soo jaro macno kaluu yeelanaya. fawaylu lilmusalliin oo kaluu noqonaya. yacni wax weeyaan fawaylu lilmusalliin oo qeybtii ka dambeysay fasiraysay la gooyey munaasabadeedii laga soo jaray macno khaldan baa laga fahmi karaa. dabcan arrinta iyada dadka qaarkood waa u qasteenoo waa dadkan inta badan youtuberada ahee raadiye muxuu ahaay ayagu muxuu ahaay hungurigu ka galay. laakiin dad fara badan oo walaalaha oo iska niyad fiican baa ku kadsoomaya. waxay moodayaan wixii muxuu hadal hadda la yidhi oo su-aalo badan markaa ka dhalan karaan. haddii aan dhihi lahaa hadda aan dhihi lahaa oo munaasabadan hadda taagan hadalka aan ka dhihi lahaana de maana la hadleen Saciid Deni iyo Axmed Madoobe keliya maana la hadleen. waxaan la hadli lahaa dhinacyaha ay khusayso arrinta Soomaalida oo dhan kolba sida ii muuqato mid walba dowrka iyo kaalintuu ku leeyahay baan wax ka dhihi lahaa. muxuu ahaayey sidii tii horeba aan sameeyey. marka arrinka isaga ah in lagu baraarujogo walaalaha akhyaarta su-aalaha badan isoo weydiiyeen saa u fahmaan iyo dadweynuhu ninkii de si khalada u fasiranayayna muxuu isagana la ogaado. intaasi waa munaasabadan usoo galay inaan muxuu ahay kelimadan idhaahdo. arrinta Soomaaliya marka la yidhaahdo runtii waa arrin u eg maalinta ka dambeysa inay kasii darayso. la dhihi karayo dhinacyo badan marka la fiiriyo quus bay taagan tahay. ka hadal laga hadlaana waxay ku fiicnaan lahayd markii hadalku uu yahay mid wax taraya ama la qaadanayo ama wax soo kordhinaya. laakiin taqriiban waxaad moodaa inuusan hadalkii uusan nafci lahayn oo xaaladdu inay kasii darto mooyaane aysan ka soreyn lahayn sababo dhowr ah. midda koobaadi wax weeyaan dadka xilalka hayaay in badani
daacad kama aha wadanka iyo hogaankiisa daacad kama aha هذه حقيقة وي أما ذاتك هاد لبتو أما هاد يندبن أما محو هاي هلا تشعليسو ما يلا تشعليسني لكن daacadnimo ma jirto shayga mar haduu daacadnimo waayo gaar ahaan aad hoggaan tahay oo aad daacadnimo weydo markaasi waxa weeyaan ilaahay garabkaaga waa ka baxaya haddii ilaahay garabkaaga ka baxaanay shaydaan baa garabkaaga noqonayo talada dhan waa lagu seejinayaa iyo muxuu ahaay maslaxada midda labaadi waxa weeye wadanka tala Soomaaliyeed kaliya hadda kuma socdee gacan shisheeya yaa ku jirta oo dadkan mas'uuliyiinta ah inta badan mid walba salka wuxuu ku hayaa ama dhabarka wuxuu ku hayaa dawlad shisheeye ama dawlada shisheeye taladii marka tala Soomaaliyeed ama tawala ummadani ay leedahay ma ay aha tasaddexaadna waxa weeye shacabka laftiisa ilaahay sunnadiisa kowniga waxa weeye marar badan saan tilmaanay quraankuna sheegay shacabku haduu hagaagsan yahay baa ilaahay madaxda u hagaajiya وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون بو إلهي تبارك وتعالى مربع haduu dadku ظالمين yihiin oo ayagii ay dulmiga wadaan in ilaahay tabaaraka wa tacaala madax dhaalimiin ah oo musuqmaasuq iyo qabyaalad iyo burbur iyo nafci iyo danayste iyo madax noocaas in qoorta loo geliyay waa ilaahay xuquuqaadkiisa mid kamida way taana waxay ku xalisantaa in hadii shacabku uu dulmiga ka noqdo oo ummadu ilaahay u soo laabato oo khaladaadkii isdul fuulay ee soo jiray dib looga noqdo sidaas wax ku xalismaan dhanka markaad ka fiirisana shacab soo noqonayo oo isgaranayo oo maalin ka dambaysa xaalkoodu waa ka sii darayaan xumaantu waa sii siyaadaysa tarakumaadkaasi isdul fuulay markaad fiiriso waxa ku soo baxaya malaha arimahani in la isaga aamuso ayay mudan yihiino marba hadaan muxuu ahaayay hadalkii uu waxba tareenin oo waanadii waxba tareenin inta muxuu ahaay culimadii baa qayliyaysa aqoon-yahankii baa qayliyaya waxgaradkii baa qayliyaya cid kasta oo wadankaasi daacad u ah qayliyaysa laakiin inay wax ka sii daraan mooy wax ka soo reyn ma lah arinta iyada marka waxay tilmaamaysaa marar badan ay isleedahay malaha wax weeyaan in laga gaabsaday ku fiicantahay haddana maca dalika ilaahay agtiisa de su'aal baa taalo ugu yaraan sida ilaahay quraan kariimka ku sheegay macdiratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun ilaahay agtiisa inaad cudurdaar ka hesho oo maxaad ugu sheegi weyday maxaad uga hadli weyday maxaad u dhihi weyday baa su'aal ilaahay hortiisa taala ah adigu inaad fakato oo waxaad ku cudurdaarato hesho oo ilaahu waan sheegay oo waan ka hadlay oo intii tabartayda waan idhi inaad ilaahay agtiisa ku fakato intaasi ayaa maslaxada weyn hadii xataa waxba la qaadan waayo waxa kale oo meesha ku jirta wala'allahum yattaquuna ilaahay waa ku darayo in wuxuu lagu qaatana waa suurtagal oo cidun ilaahay tabaaraka wa tacaala yani wax way uu intifaac ka siiyo iyadana waa suurtagal fircoon markii nabi muuse iyo nabi haaruun ilaahay u diray tabaaraka wa tacaala isagoo ilaahay ogsoon yahay inuusan rumaynaynin haddana maca dalika allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku yidhi faqula lahu qawlan layinan lacallahu yatadakaru aw yakhshaa yani u tagaa la yidhi wuxuu sheega waxaa laga yaabaa inuu isdaahiriyo ama alla ka baqo yani ha ka quusanina waa xataa hadduu duqyaanka iyo kibirka iyo yani wax isla weynanka iyo xadgudubka meesha ugu dambeey ka gaaro fircoon ilaahnimo sheegtay idinku inaad wax u sheegtaan ha ka daalina buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala marka min hada albaab ayaan munaasabadaha qaarkood yani wax weeye aan uga hadlaa ama aan uga hadalaa ma aha muxuu ahaayey arintu muxuu ahaayey ma aha inay intan aan ka hadlayno mooyaane kuwa ka daran ama xaalad ka culus ayaa wadanka haysata ilaahay tabaaraka wa tacaala ha fududeeyo mar kaleba waxaan leeyahay madaxweynaha wadanka xasan sheekh iyo muxuu ahaayey ragga uga hooseeya iyo kuwa dowlad goboleedyada intaba ilaahay intaad ka baqdaan tabaaraka wa tacaala oo inaad ilaahay hor istaagaysaan ogaataan oo noloshani inay maalmo tahay ogaataan oo intii idinka horeysay ee kuraastan ku fadhiisatay inay tageen aada ogaataan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala hortiisa waxa idin yaala aada ku xisaabtantaan
ummadana u tura dalkana u tura ilaahayna ka baqa nafcinimada iyo nafciga iyo danaha aad ka raadinaysaan meeshana ma yaalaan inta ummad baaba'aysa inta burburaysa dalka lumaya inta gaajaysan inta dhibaataysan inta badaha muxuu ay ku baaba'aysa ilaahay maalinta qiyaamada waa idin weydiin doonaa waqtiguna waa kooban yahay meel kalena lagu xisaabtami doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh